بسم الله الرحمن الرحيم قيبتنا مركز waxaan arkaynaa inaan isticmaalo find iyo filter labadaas arkaynaa data aan gelinay si markaas ku soo heli karnaa anagoo sameyn data specific shay inaan qorno kadibna data kala soo baxno ama filter aan ku sameyno okay waxaan soo kicinaa markaas terminalkeena ayaa soo kicinaa sida caadiga ahaydba farta xeelada ku soo daro waxaa leeyahay markaas si shellka u galo waxaan qoraa maanku qoraa kadib enter leeyahay okay kadib waxaa la show db standard database badan ayaa ii samaysan database kan isticmaali doona markaas blog waxaa leeyahay markaas use blog ayaa leeyahay okay kadib show collection ayaa leeyahay si collections kan u arko waxay samaysan waa posts haddii aan dhammaan posts aan u aragno waxaan rabaa datada posts ka data aan gelin hal mar soo saarnaa rabnaa waxaa leenahay markaas db kadib waxaa leenahay collection name ka oo lagu magacaabo posts kadib waxaa leenahay dot find okay qaabkaas ay qoraynaa an empty object hadii all isa u heshid okay way noo soo bax markaas laakiin datada qaabka u soo bandhig waa qaab markaas isku qasan oo si fiican loo akhrin karin si clear aan ka dhiganaa alert kor taabo si qoraalka hore ugu soo celisid waxaan raacinaa markaas dot pretty raacinaa enter leena markaas okay hadda qaabkan ay u soo bandhigaa marka kaas qaabkaas oo quruxda badan u soo muujiyay intaan waa hal documenti kaleeta iyo documenti kaleeta okay maxaa dhahnaa markaasi waxaa dhahan db kadib waxaad sheegaysaa collection name oo ah posts kadib waxaa leedahay dot waxaa leedahay kadib find ayaa leedahay kadib waxaa raacinaysaa dot pretty okay si aad u qurxiso marka intaas inta ayaa leenahay qaabkaas ay u soo saaraynaa okay anaga waxaan rabaa inaan isticmaalno markaasi data kaleeta oo muhiim ah datadan aad u fara badan استعمالنا sample ah repository ana ka helaysaa markaasi meeshana ka helaysaa repository-gan ama qaybta description ka ku dari doona markaas waa products waa iska sample oo JSON ah products-ka inta ay code ku soo sameynaa marka dhamaantooda okay copy soo dheh copy حتى markaasi meel ka mid ah u qori karna wax waxa leenahay db get best kule marka koowaad waaragta qoraalkaas inta ka muuqdo waa qoraal aad u fara badan waa markaasi kor waxaan ka hormarinaa markaas waxa leenahay si aan insert multiple insertion u sameyno db dot waxa leenahay markaasi insert and waxa sheegaya markaasi collection name ko ah posts kadib waxaa leedahay dot insert many okay kadib bracket ee taas ayaan furaa bracket kaas furaa markaas meesha ugu dambeysana inaan ku soo qatimaa okay intaas markaas sameeyo inta data meeshan ku save gareenin waxaa rabaa data hore in iska tiro sida u tira markaasi sida u tiro waxaa leedahay db kadib dot leedahay collection name ay sheegaysaa posts kadib dot leedahay remove ay leedahay kadibna waxa sheegaysaa empty object ay meesha ku sheegaysaa empty object marka ay macnaheedu waxay tahay dhamaan wala baabiina hadda afar shay ayaa markaas nagu soo gudbisnay hadii aan xaqiijino refresh leh waa afar saaragtaan afartaas okay enter markaan dhamaan waxa dhacaya saaragtaan waxa la remove garay afar shay ayaa markaas laga saaray inta hadii aan ku noqono refresh hadana waa ever saaragtaan waa ever markaas haba nagu ma yaalo okay hadda waxaan sameynaa insert ayaan sameynaynaa qoraalkan ay soo koobiyeenna marka inta adiga anaga copy ku sameynaa okay right click there copy insert right click paste ku marka markaas qoraal aad u fara badan waaye enter lena markaas okay saaragtaan waxa geliyay markaasi waxyaabo aad u fara badan yihiin hadii aan xaqiijino markaasi ilaa ay content gaaraysa filayo refresh leh okay maxaa gelinay meeshan ilaa ay content oo document markaas ayaan gelinay ka document walba ka kooban id title type description ka file name ka wuxuu kala kooban yahay height iyo width ga price ka rating ay ka kooban intaas hadda datadan waa isticmaali karnaa marka marba qaab ayaa ka dhigi karnaa u isticmaaleynaa okay waxaa leenahay marka koowaad iska clear gareynaynaa datada inaan soo helnaa rabnaa waxaa sidee datada ku soo bandhigi kartaa dhammaan sida data aan soo sameeyay waxaa leenahay db dot kadib waxaa leedahay
collection name-ka oo ah post dot waxaa leedahay find kadibna dot ayaa leedahay rate ayaa leedahay enter ayaa leedahay markaas dhamaan ayaa kusoo baxayo okay qaar kamid ay noo soo bandhigaan dirtaan inta kale soo arag maxaa qoraysaa type ku leeyahay IET qor enter dheh kuwa kale soo baxaan IET okay qaabkaas markaasi aan usoo bandhignay okay waxaan rabnaa anaga markaas shay kamid ah hal kamid ah oo kaliya aan aragnay oo baahna halka oo kamid ah ay arkeenaa soo ku saarayna kaas waxaa leenahay markaasi db dot waxaa leenahay markaas posts dot find one haddaad waxay ahayd find oo kaliya find markay tahay waa dhammaan laakiin waxaa leenahay find one hal hab oo kaliya ayaa meeshaasi in kala soo bixinaa okay muxuu noqonaa markaasi id-ga ayaan isticmaalaynaa waxaa leenahay id qaabkaas u qormaa underscore kadibna id kadibna intaan soo koobiyey markaas ku dhagan ama kan loo soo koobiyey intaas okay inta ka right click deh okay waa ka meesha ka soo muuqday markaa oo db posts find one kadibna id-gaas oo equal ah marka wuxuu noo soo bixinaa oo kaliya midkaan oo kaliya ay ku qoran tahay fruitskaas ayuu noo soo qabanaa inter ayaa leenahay aragtaan bax halmaas ka clear gareeno inter ayaa leenahay maxaa noo soo baxay fruitka oo kaliya meeshaas noogu soo muuqday taas la fanaamaleynaa muhiim maahan oo kaliya id bis ku raadisid waxaa ku raadi kartaa sidaa rabta adi type-ka ku raadi ama maxaa la rating-ka ku raadi waxaa rabta ku raadi hadda rating haddii aan ku raadi waxaa leeyahay markaas db dot posts dot find one okay waxaa leenahay markaasi rating-ka oo one wixii la mid ah ama rating zero raadina zero hadduu jiro kadibna dot ratia raadi okay rate is not a function okay si fiican sababtoo ah ana find one uma baahna markaasi wax la soo celinaa waa hal document oo kaliya inter dheh okay waxaa noo soo baxay kan ayaa wuxuu yahay markaasi zero ah haddii ay fara badan yihiin kaliya hal kamid ayuu soo akrinaa hal kamid ah markaas ayuu soo haraa sababtoo ah aniga waxaa dhahnay find one ayaa dhahnay laakiin haddii aan qor lahayn db dot kadib aan dhahno posts dot find oo kaliya qoraynaa kadibna filter ku sameynaa meeshaas waxaa leenahay rating-ka meesha uu la mid yahay zero kaliya hadda bracer noogu dar marka si aan qurxino haddii ay fara badan yihiin inter dheh waxaa noo soo baxay waxyaaba markaas aad u fara badan waa 1 2 3 4 afar shay markaasi meesha noo soo muuqatay waa ogaa karnaa markaasi tiradooda ogaa karnaa inta tira ay yihiin meesha find anaga dhahnay waxaa dhigi karnaa markaasi count document okay count document tasnatan fila okay ana soo baxay 4 mujeda afar ay ahayn markii aad rabtid inaad tirasid waxaa leedahay si sahlan ba intaas ay qoraysaa db kadibna dot posts dot count documents ay qoraysaa kadibna waxaa sheegaysaa filterka ama qaabka filter lahayd inta ay leedahay numberka ku soo baxay saa markaas u xaqiijina afar shay inoo soo laabteen okay waxaa kaloo sameyn karnaa hadda waxaan isla barnay saddex shay find oo dhammaan ah find one iyo waxaa kaloo soo aragnay count documents inaan xisaabino waxaa kaloo arkaynaa markaasi waxaa kaloo isla arkaynaa calaamadahan comparison-ka arkaynaa markaasi equal and greater than okay greater than equal okay marka waxyaabahan arkaynaa si u sameynayna ayagana waxaa leenahay markaasi db dot posts and dot find object gudaha gelina object waxaa leenahay markaasi waxaa leenahay rating meesha rating-ka waxaana rating-ka wixii ka weyn 5 inaan soo bandhigno oo kaliya rating-ka qorto kadib object kale gelinaysa waxaa leedahay markaasi calaamad say dollar keenaysa greater than ayaa sheegaysa kadib waxaa leenahay 5 wixii 5 ka weyn oo kaliya kadibna dot rating oo raac waxaa meesha raadinayna hadda anaga wax walba oo rating ah oo balse laakiin ka weyn 5 inta markaan fiirino waxyaaba badan oo qoran rating-ka fiiri qaar waa 3 qaar waa 1 4 kan waa 5 3 wax 5 ka weyn aan isku dayrayna helna hadduu ku jiro intra lena markaas nooma soo bixi sababta waa eber wax 5 ka weyn ma jiro okay midaas ma karnaa greater than or equal lena markaasi wax 5 ka weyn ama 5 la eg inta dhexdirtaan okay waa noo soo baxay mid kamid ah waa kan waa 1 2 3
4 5 okay fara badan sa aragtaanba oo soo saaray markaas tiri ahaan oo xisaabi karnaa oo waxa leenahay qaabka hadirtaan leenahay oo kaliya kadibna meesha find aan xal ku bedelayna markaasi document account document okay documents leh creator naga tira enter number okay account waan qalday qaabka u qoray iidaas aan ka bixiyo enter leh ana soo baxay 9 ilaa 9 document markaasi ayaa rating kooda wuxuu ka weyn yahay ama uu leeyahay 5 okay marka kaleeta asameynaysid waxa anaga raadinayna qaabkan u qoreen dad cadin ratingka meesha ratingka uu yahay 4 ama 3 uu yahay ayaan dhiganay qaabka u soo bandhigeen balse comparison ka sameynaysidna meesha 3 dhaadid waxa gelinaysa object kaleeta waxa sheegaysa markaasi $, kadibna greater than or equal to kadibna waxa sheegaysa numberka aad soo bandhigaysa okay waxa leenahay wixii ka weyn 3 okay wixii 3 ka weyn iyo maxaa kala leenahay markaasi waa isku dareen labadood waxa rabnaa in aan labada isku darno okay okay midda kale barnaamij waxay tahay midna waa comparison kan asla aragnay midda kale waxay noqonaysaa markaasi waxay noqonaysaa midan kale markaasi loo magacaabo logical kaas aan arkayna antan amal arkayna inta dhahno waxaan soo baxay ant qaabka idan loo isticmaalaa aan ka dhahdidna kadibna qaabkan u sheegi kartaa $, soo qof kartaa kadibna waxa sheegaysaa markaasi array kadibna expressionada gudaha gelinaysa qaabka ay ku sameyn karnaa okay kan comment hadana waxa leenahay $, less than equal to okay aan fiirin hal mar hadda waxaan la aragnay greater than or equal asla aragnay marka waxa leenahay markaasi less than or equal to leenahay markaasi aydan lt okay 4 enter leh okay wax 3 ka weyn 4na ka yar ma jira ma soo bixin sabab okay 5 leenahay صح sababta nooma soo bixin oo ma jirin ba wax oo markaasi 3 ka weyn ee rating kooda 4na markaasi ka yar ma jirin okay tan wasla aragnay markaasi in aan isku darno laba shay greater than or less than dhamaan oo sameey karnaa mid xigto waxay comparison kaasna sameeyna idana waxa leenahay okay find marka dhahno waxa sheegaysaa markaas meeshaas waxa sheegaysaa an ayaa leenahay kadibna an array ayaa sheegaysaa meeshaas array object ayaa gelinaysaa objectaas waxa sheegaysaa markaasi expression ka ayaa sheegaysaa expression ka meeshaas ku sheegana anaga okay waxa leenahay ratingka equal to 1 ama 0 wixii la eg ayaa leenahay markaasi okay wana soo baxay laakiin aska qurxina qaabka oo soo muujinayna criteria sababtoo ah ana soo rating kooda 0 saaragtaanba waxana soo baxay markaasi wixii rating kooda ah 0 ay noo soo muuqday okay dhamaan ma fiirinay laakiin isku day kartaa inta ka fiiri calaamadaha ujeedaa mid walba marka click siisid example yaro arkaysa markaasi qaabka u qorma syntax kooda or tanora leedahay kadibna bracket waxa furaysaa area furaysa bracket kaasi kadibna qaybsa ku sheegaysaa markaas logicaaga inta ku cadeynaysaa okay hasla aragnay markaasi waxyaabo fara badan kamid ah markaasi inaan dhahan find one okay find one aragnay waxa kale aragnay markaasi find caadi ah ayaan aragnay waxa kale aragnay markaasi count documents iyo waxa kale aragnay qaabka loo sameeyo comparison si loo sameeyo markaasi an iyo waxa la wixii la mid ah markaasi greater than okay less than iyo wixii la mid ah markaasi waxa kale soo aragnay comparison ka aragnay labadaba aragnay markaasi okay qaybta inta ay ku joojinayaan markaasi filterinka iyo findingka wallahi hada video ku caawiyo like comment share subscribe inta samee mahadsanid